waxaan rabaa in maanta inaan halka kan idinka tuso kilib yar oo ku saabsan sida Google Authenticator aad u edit garan karto ama aad yani uga tiri karto application ama exchange aad ku xiratay. For example, hadda waxaan ugu xirnaa qalab Bybit iyo CoinX. Haddii in case aan damacno inaan CoinX-ka edit aan ku sameyno oo aan ka bedelno magaca, kaliya waxay noo furaan hal wado oo ah sliding. Haddii aan taabano saddexda falaar oo kale ma heli karno option oo edit ah ama deletion ah ama tirid ah. Haddaan riixnina copy kaliya ku siinaya. Marka waxaa laga yaabaa dad badan inay ku wareereen saas daraadeed waxaad sameynaysaa sliding, yani waad soo jiidaysaa adoo kasoo bilaabaya dhanka bidix u soo wada xagga midigta. Dan waxaa suuragal ku ah inaad ku sameyso edit, yani inaad wax ka bedesho ayaa markaa yani suuragal ah. Waxaan leedahay CoinX magacii aad bedelatay. Dan waxaan leedahay save xagga hoose. Dan oo ku bedelmaya waa markaad sameynayso edit aad ku sameynayso magaca. Haddii sidoo kale u baahato inaad iska tirto gebigiisaba, waxaad sameynaysaa sidoo kale sliding adoo ka bilaabaya dhanka midig una wadaya xagga bidixda u dhameyn. Dan waxaan ku soo baxay remove. Waad remove garanaysaa marka. Waxaan leedahay remove account. Haddaad ku dhifato dan saas ayuu kaga baxayaa.